madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan dalka Koonfur Afrika ayaa saacadaha soo socda la filayaa in kulan la qaato Soomaalidu ku nool dalkaasi sida ay xaqiijisay madaxtooyada Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo ayaa wuxuu kala hadli doonaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ku dhaqan habkay u nool yihiin dhibaatooyinka la soo darsa. Soomaalidu ku nool Koonfur Afrika ayaa la soo darsa xaalad nololeed aad u xun iyo waliba qaar kale ganacsatada ah oo mararka qaar lagu dilo halkaasi halka qaar kalena la gubo. Weerarada loo geysto Soomaalida ayaa mararka qaar waxa uu sababa dhimasho iyo dhaawac halka qaar kalena goobahooda ganacsi gabi ahaanba dib la qabadsiiyo. Dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galaya caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalka Koonfur Afrika ee dhawaan la doortay. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed oo warbaahinta xalay saqdi dhexe kula hadlay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha uu ka qayb gali doono xafladda caleemasaarka sidoo kale uu la kulmi doono jaaliyadda Soomaaliyeed halkaas ku dhaqan. Waxaan fiidnimadan soo gaarnay magaalada Johannesburg madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdiga hogaaminaya oo ay kamid yihiin wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Danjire Axmed Ciise Cawad iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada Dr. Nuur Diiriye Xirsi Fuursade. wafdiga madaxweynaha waxay halkan u yimaadeen sidaan maanta warbaahinteeda kaga sheegnay inay ka qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee South Africa mudane Cyril Ramaphosa. booqashadana waxaan uga faa'iideysanaynaa inta uu madaxweynaha halkan ku sugan yahay marka laga soo tago ka qaybgalka caleemasaarkaas inuu kulamo gaar la yeesho jaaliyadda ballaaran ee Soomaaliyeed halkan ku dhaqan iyo ganacsatada halkan ku sugan kuwaas oo runtii dib iyo dheefba wadankan ku qaba kulay dheefta ay ku qabaan Allah u siyaadiyo laakiin caqabadaha ganacsatada haystay waxyaabahaas oo dhan in wixii ay dawladda ka geysan karto in laga gudbo inaan ka shaqeyno. marka waxaan rajaynaynaa booqashadan labada maalmood soo socota madaxweynaha uu ku joogi doono halkan iyo caleemasaarka uu berri uga qayb galay aroortii magaalada Pretoria inay noqon doonaan booqasho miro dhal ah oo runtii danihii iyo ujeedooyinka halkan aan u nimid aan ka gaarno. waa mahadsantihiin. sanadka 2019 waxaa Koonfur Afrika lagu dilay dad aad u fara badan oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah oo ku dhaafaysa 20 ruux halka tirintaasi ka badan dhaawacyo kala duwan la soo gaarsiiyay kuwa kale aad u fara badan waxa gabi ahaanba la gubay goobahooda ganacsiga.